أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وهرنتي يقدو مثلا ديرا مرتد هلك maanta inoo yimideen haddii noqon lahaayeen jaaliyada ka socdaan Birmingham, Leicester, Leeds, Bristol, London, Liverpool iyo maxaan ku Sheffield iyo labada degma nagu soo dhow isla ka tirsan Great Manchester Bolton iyo maxaan ku sheegay Liverpool. intaas ku soo dhawaada Manchester. anoo ku hadlayo magaca guurtada Manchester ee Soomaalida, anoo kuna hadlayo magacooda sida ogtiin maadaama iskiina baro badankiina way taqaaniin, waxaa la yidhaahdaa Shariif Cumar Zeno. kumeel gaar hadda waxaan ka ahay Manchester, maxaan ku sheegaa guurtada jaaliyadeeda. marka ujeedada aan igu yeerin halkan ama idinku wacnay maanta waxay leedahay ujeedada weyn aan ka leenahay way waxaan maqli jirnay mar kastaba community London communities, laakiin weligaan ma maqlin tada ama golaha guurtada ama golaha maxaan jiraa weli maan maqlin. waxaan maqli jirnay community oo kala badan. masalan haddaan ka soo qabto Manchester waxay leedahay 36 maxaa yiraahdeen community, laakiin wax tarkiisu amaleeyo iska yaryahay, yani dan Soomaali looma shaqeeyo. laakiin waxaan filaa maalintii aan isku nimaado aan ku heshiino inaan sameeyno jaaliyad Soomaali loo dhan oo UK dhan ka dhaxeeyo. dabcan gobol kasta waxbay leedahay jaaliyad leedahay, laakiin markii ay midoobaan oo hal samaystaan waxaa hubaanta inaan ka roonaan doonno dadkii naga soo horeeyey oo kusoo gurmay oo soo jooga wadankan siniin ilaa anaga ka bedeli karno. markii Soomaali waxaan u leenahay heybad, waxaan leenahay dadnimo, waxaan naqaanaa Soomaalinimo, walaalnimo iyo waxaan leenahay maskax fiican haddaan ku shaqeyno maskaxdaan. laakiin haddaan ku shaqeysan waxaan nahay albaac. hadda 20 sano soo moodnay wax hadda la taabtaan ma dhicin. dowladda hadda xooga saari doonta inaa jaaliyadan maxaan ku sheegaa jaaliyada Soomaaliya oo UK inaa ka dhigto mid siiba markii soo magacaaday Cabdi Cumar Cali inuu noqdo gudoomiyaha maxaan ku sheegaa Soomaalida UK. taas waxay nasinaysaa dhiirigelin in anaga wax qaban doono. annaga waxaan isku dayaynaa Manchester gaar ahaan marka hore inaan bilaabno labada gole aan sameyn laakiin inaan xoojino labada gole ama noqonaan golaha murtida, golaha maxaa yiraahdeen guutada iyo golaha jaaliyada inaan sameyno, aan xoog u sameyno. طبعا tira qafood baa la qaadanaya kaas oo noo Maxamuud Axmed Geese. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن سلامي martida waxaan leenahay magaalada Manchester kusoo dhawaada dhammaantiin. waa ogtiin maanta gogashaan maaragtay waxaa fidiyay Greater Manchester ama Manchester weyn. Manchester kaliya haddaan dhahno maaragtay waxaana la jira dadkii kale oo ka tirsanay maaragtay taas raalli inaa ka aatiin marka hore.
maadaama aniga aan ku hadlayo afkii guddiga jaaliyadda shariifka kulli hadalka dhameeyey insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah waxa hadda la himahay iyo wax ka badan inaan gaarno haddii ilaahay yiraaho Manchester waa magaalo maaragtay isku xiran bulsho aad u badan oo Soomaaliyeed ay degan tahay kana duwan bulshadaha kale markaa fiiriso maxaa jira Manchester waxay uga duwan tahay wax kale ma ahane waa dad isku wada xiran ama xaq jaaliyadda London aan la joogto oo hogaaminaya maaragtay gudoomiyaha jaaliyadaha UK Masar Cabdi Umar waxaana la jooga jaaliyadda Bristol waxaana la joogta Birmingham gudoomiyaha wuxuu hilmaamay jaaliyadda Sheffield rally hada dadka imaada ku jirta war dhamaado insha Allah naadirtan waxaan u yeeraynaa muxuu ahay adeerkay Cabdi Xuseen Faahiye bal inuu laba kalmad uu ka yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waan salaamaya dhamaantiin marti sharafta ka soo qayb gashay halkan oo aanu gogashaan u fidinay ay ka mid yihiin jahliyadaha gudoomiyaha jahliyadaha UK Cabdi Umar Ali iyo guddiga la socda oo jahliyadda London ah hay waxaa ka mid ah jahliyadaha soo dhaweynayno magacyadooda haddaan xuso waxaa ka mid ah jahliyadda muxuu ahaay London waxaa ka mid ah jahliyadda Birmingham waxaa ka mid ah jahliyadda Bristol waxaa ka mid ah jahliyadda Leicester waxaa ka mid ah jahliyadaha muxuu ahaay Sheffield waxaa ka mid ah Liverpool iyo Great Manchester kuwa la isku yiraahdo Bolton ka mid tahay dhamaantii waa soo dhawaada waa mahadsantiin ka soo qayb gasheen halkan oo muxuu ahaay waqtigiina soo hurteen oo u timideen oo naga muxuu ahaay ballan qaadeen inaad naga soo muxuu ahaay aan gooshaanada soo gashaan aad baan idinka mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha jahliyadda UK Cabdi Umar Ali oo wax badan ka soo shaqeeyay arrintan oo haddana isku dayay muxuu ahaay gobolada iyo muxuu ahaay capitalka London in la isla jaan qaado oo la helo community Soomaali ah oo strong ah oo wax qaban kara oo muxuu ahaay dadka anagu jahliyadii naga soo horeeyay waxay qabsaneen oo kale inaan anaguna qabsano maadaama hadda wax badan aan joognay dalka aan muxuu ahaay systemkiina aan la qabsanay oo waxaan naga maqan inaan midowna kaliya naga maqan bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii horeysa waa mahadsantihiin nooma suugtoobin si effective dadkii oo sabri badan iyo waqti badan iyo cilmi badan geliya baa loo baahan yahay hadda annaga markaan isu nimaadno sidaan camal aad baan u fiicanahay u jeedaa baa qurux badan nahay dharka aan qabno hadalkeenu aad buu u fiican yahay shaqada haddii hadda la sii wado markay 6 bilood hal sano la joogo qofna ma arkaysid guddiyaasha markaan qabanaynay waxaan ku bilownaa dhowr iyo 10 qof baan ku bilownaa markii 6 bilood la joogo 3 qof baa ka soo hadha 15 qof 20 qof hadda intayna halka joogta waan isnaqaana kulligan waa isnaqaana haddii hal la shaqo hal la wado la soo imaan mayo 6 bilood kadib Cabdi Cali Umarna waan u sheegaya waxbayaan shirarka iyo TV-ga iyo quruxdan iyo waxaan aad baa looga helaa laakiin markay runta noqoto dadka Soomaaliga sabr uma leh shaqada inay wadaan bismillaahir rahmaanir rahiim awal bismillaah aakhir bismillaah horta waxaan salaameynaa in allaale inta UK nooga timid oo rag iyo dumar le aan salaameynaa soona dhaweyneynaa gudoomiyaha jaaliyadda oo يعني أو كم مدحته هاي أيام سود وينينا هذا غير مانشستر حد قوايا حولها دنكود إيا حمر دان قارن إنه وحو كده حيدي هاي حرم مذوباتي ما أنت وحن تاجن هاي أقونتي ضديه الشيء الصباح ضلكو أقوموا أهاي dadkuna agooma u ahaay bad iyo berin halaqyaa u soo baxay ummadayni baday ku dhamaatay gobolna daadkaa qaada
waxaan maanta faa'iidna wixii naga dhintay allaha sabar naga siiyo naxariistiina allaha jannadii ugu bishaareeyo waxaan se faa'iidnay tacliim badan inta hirtaahu ay la soo joogsatay rag iyo dumarba maanta qaar kastoo Soomaaliyeed 5 iyo 4 qofood wax qori karta oo computerka wax geli karta oo website-yada ku hadli karta oo wax waliba dalkooda u danqan karta soo baxday mahad ilaahay baan u mahadnaqay alxamdulillah rabbil caalamiin anu wax badan ku darimayo waa isu soo baxdeen fadhigaan isugu nimid aan lillaah ku kala tagno lillaah yaan isugu nimid aan lillaah ku kala tagno war dalka qof ma leh laba ma leh qabiil ma leh Soomaaliya leh calanka shanta gees leh ayaa loo taagan yahay ceel baa lagu riday beriyaanan anugu talaasir maanta tala ceel ku dhacday oo rajalaadad rajamale nin walaalkii raba ribadka goontiisa rajamale rijaal isu timi oo talada rajamale nin reerkiisa guba ee islaan raay waagaan marka waxaan ku wadnaa reerkayna gubtab ku wadnaa waxaan idin leeyahay shimbirtu waa noo haaday baalan u yeelno waryaanan baalalka ka rif war baalka aanu dayno oo dhulka laga daayo war dhulka laga daayo anu waa jadbooday waa ooya war dhulka laga daayo maantay xasan sheekh maxamuud jawaari talsan cabdi sheekh doon يعني وسيرك قاشان دقة نكستو طلابة قاضي ماشو تاجا وكذا دلالة واي قرب كوجا دقنا مرك والقرب كوجا دايا إلى قرب كلا إذا وكذا دايا قرب كوجا دايا نمك واسوق من قبل هيك الله عبدي عمر علي وحن كوش يجا إذا ما مغنى على ما قدني إلا بركة وجنة tartan iyo ordaad ku jirto maantay geedka ku soo fuush annana waa kula haysanaa meel magac looga tag shalana waa ku iri adiga ya marjan qaasin markaad noogu timideen hoolkaaseed meel magac looga taga shariifkana meel magac looga tago meel magac Allah shariif nuuga tagay adna kula soo qabateen haddeeray badan yahay oo wali bura la jooga waagaaba adduun badan yahay oo bura la joogay inta hore hadan ka fiican war ma ballan qaadnay inaan community-ga isla qabsano ahad ya ballan ma idin ka tahay garabkiina kor Allah ka dhigo garabkiina kor Allah ka dhigo laakiin nasiib dar waxay naqatay in Manchester ka gaabisay nasiib wanaagna u naqatay ayaga in laga hormaraan taasna waxaa keentay Sheffield Birmingham inay shirk u kaca oo gacan qabta oo Soomaali ah oo horseeda waan ugu hambalyeynaya gudoomiye jaaliyad UK marka ugu horeysay aan maqlo arkana maanta oo hambalyeynaya Manchester aniga Hashim Musa iga soo reeyay maalin jimca ay tahay oo sanadkii 92 bishii October ayaa magaalada soo galay gurigiisan ka qadeeyay fadhiyo rugcada kale toon caaw idil aanu carabkeena uu gafay gudoomiyaha golaha guurtada odayaasha UK Shariif Axmedey walaalayaal inaanu asaga ugu horeeyay in lagu soo dhaweeyo magaalada Shariif Axmedey raali ahaa Soomaaliyeed Manchester ku soo hoyanaysa hada waa another rugcada fadhiyo waxaan ka tagnaa garan laanahay waxa fadhiyo wuxuu yiri iga dhaaf laakiin se ka dhaafi maayo waxa joogo Cornel aniga Cornelkayga waaye hada dawladdaas inaan qirana waa laga maarmaan Cornel Maxamed Ibrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مركو هور إذنكو سلام يا سلامة إسلامك مركو كلا سيدي لو سو دوي قدية دادك إيقو هوري إيقو سو دويين دمان قدية أنو كلا سارين وياهي قدومية عبد عمر وحان ليه مقالة مانشستر كسو دوادا magaalada maxay war muqdisho ku soo dhawaada ma ka noqonayo
حرام واي إنا كان نقض حرام واي مقدشو كسر هذا واي هاي ساهبين والبنجوجاي مركا إن وحنا إذن لا هاي إن ولا ليالو أنا مرة بهذا إنا كل هذا بركة أنت حكمة دلائد ولا يري وحلقتك وابسكيرين odayaasha dambe oo ruug cadaaga oo iga dambeeyana in wax loo hambeeyo waa fiican tahay waxaan idiin sheegaa hal shay laba hadal oo xaaji maxamed bakaari iyo ninka la yiraahdo uga salaad ay ku hadleen aad ay taabatay taariikhayna soo xasuusay awada jaw abgaalu yiri wax taariikhdaas qoray ma lahan wax sheegay ma lahan ma garat ilaaha u naxariisto لكن مدحوينين هرو رحمه الله محمد سياد بري هذا وقيمين جري بسم الله الرحمن الرحيم علنك Soomaaliyeed baan ciisahaynayaa calanka Soomaaliyeed baan ciisahaynayaa calanku cidlay oo cayaar ciida kuma iman curad ya badan baa dartiis ciidka hoos mareen calanka cududa isku yimi aan cilada la dhigin haliyey xasan weeyo waa la wada huba madaxweyne xasan waa haliyey xasan weeyo waa la wada huba aqoon heer sara ka gaaro hoggaanku wacan aqoon heer sara ka gaaro hoggaanku wacan halana kama qaadi karayaan hinaasayaal hogaankee toosan baa hilka loo huraa hogaankee toosan baa hilka loo huraa hanadya wiilaliyo gabdhaha heegankuugu jira hanadya wiilaliyo gabdhaha heegankuugu jira hareerahanka jirnaha heegan baanu nahay oo hilayo xasan baa lagu hayaa hodanka rabbiga xasan oo ha kula jira hodanka rabbiga xasan oo ha kula jira hareer madaxda qaran oo mahad buuxda naga gudoon madaxda qaran oo mahad buuxda naga gudoon magii Soomaaliyeed meel saraha dhigteen muddadii yarahay ayaa maalmo badan ka mudan madaxda dunidana markii meel kastaba marteen madaxda dunidiyo markaad meel kastaba marteen mugdigii waa laga baxo maalin baa la galay oo maanta waa dhalata Soomaali muran laan mujtamaceenuna maqsuud buu idinka yahay midigta waa inaan ku hayna midnimada qaran mahad dhammaanteed rabbi baan u celinayaa marka waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha jaaliyadda UK mudane Cabdi Cumar Cali jaaliyadda Manchester oo runtii dadaal badan u gashay maanta inay fidiyaan gogashan ay u dhigaan dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK qaybaheeda kala duwan iyagoo isxilqaamay kana soo shaqeynayay sida aan ogahay muddo badan inay qabanqaabiyaan shirkan qiimaha badan marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa mahad celinta ballaaran kadib waxaan filayaa maanta dadka halkan fadhiyaahi marka la sheegayo gobollada iyo magaalooyinka la sheegayo ma joogaan dadkoodii oo dhan
laakiin dadka halkan fadhiyahay waa guddiyadii matalayay magaalooyinkaas oo maanta shir isugu yimid magaalada Manchester oo gogasha fidisay. waxaa runtii sharaf inoo inaan maanta halkan isugu nimaado oo taariikhi ah. waxaan rabaa marka koowaad inaan xuso guddoomiyaha guurtida Soomaaliyeed ee UK Shariif Axmedey oo nala jooga halkan maanta. runtiina guddiyada halkan fadhiyo oo maanta ka kala yimid magaalooyinka qiimaha badan ee Soomaalidu ay ku nooshahay waxay u badan yihiin guurtida oo guddoomiyaha u yahay Shariif Axmedey. waxa kaloo joogo guddoomiye ku-xigeenadii guurtida, waxa kaloo joogo guurtidii London, guurtidii Birmingham, guurtidii Bristol, guurtidii Sheffield iyo guurtidii Manchester oo ku soo biirtay maanta. runtii waa guul ballaaran oo la gaaray. waxaan u malaynayaa magaalooyinka UK ee Soomaalidu ay ku badan tahay magaalooyin badan ay Soomaalidu degan tahay oo ma aha magaalooyinka waaweyn kaliya. waxaa jira magaalooyin badan oo yaryar Northampton, Southampton, magaalooyin badan oo waxaa jira Soomaalidu ay aad u degan tahay. laakiin magaalooyinkan waaweyn ee Soomaalidu ku badan tahay waxa maanta halkan ka maqan hal magaalo. waa magaalada Leicester ayaa runtii ka maqan. mana uga maqna xumaan, mana uga maqna cudurdaar, ee waxay uga maqan tahay dhismaha dhisitaanka jaaliyadaha ee hadday noqon lahayd guurtida iyo hadday noqon lahayd jaaliyadaba ayaa wuxuu ku socdaa qaab loogu talagalay. maanta waxaa ku soo biirtay Manchester, insha Allah biritana waxaan rajaynaynaa inay ku soo biirto Leicester oo inagoo idil oo loo idil yahay oo sida halkan loo wada yimid Manchester Leicester loo tagi doono. gogashiina way fidiyeen, way ballan qaadeen wiiga soo socda markii kowda luuliya naga dhamaato inay gogol dhigi doonaan una dhigi doonaan dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool UK, kadibna ay ka mid noqon doonaan golaha guurtida Soomaaliyeed ee UK. intaa kadib walaalayaal raalliga ahaada, waa la daalan yahay, meelo fogfog baa laga kala yimid. waa soo koobaya hadalkayga. ahmiyadda iyo muhiimadda oo leeyahay barnaamijkan isdaba socdo ee lagu dhisayo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK ayaan rabaa inaan wax yar ka taabto marka hore. ahmiyadda inta aanan u gudbin waxaan rabaa laba nin oo la xusay reer Manchester ee Xuseen oo halkan ugu soo horeeyay. runtii anigu wax badan oo magaaladan imid waxay ahaayeen odayaashii nagu soo dhaweeyay. Xaashi Muuse, adeer Xaashi Muuse iyo adeer Xaashi Bakaari, Maxamed Bakaari, Xaaji Maxamed Bakaari, khayr Allah siiyo. runtii sida aan ka warqabno kulligeen aniguna wax badan aan ka ogahay maxaa yeelay magaalada hadda waxaan ku badanahay magaalada Bristol runta markii la sheego, laakiin magaalada Manchester aan ku badnaan jiray intii aanan shaqooyinkan qabanin ka hor. sidaa darteed waxay ahaayeen odayaashii hormuudka u ahaa ee runtii nagu soo dhaweeyay wax badanna ka qabtay magaaladan Manchester. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan ka codsanaynaa in hawshooda meeshii ay ka sii wadaan ee dadkii ka dambeeyay ee soo baxay ee yimid inay wixii ay experience iyo aqoon ku dheer yihiin inay ku caawiyaan, innagana nagu caawiyaan, nalana shaqeeyaan. aad baan ugu mahad celinaynaa. intaa kadib walaalayaal, ahmiyadda ay leedahay in jaaliyadda UK la dhiso waa mid aan wada ognahay, xanuunkeeduna wada taabtay, aan ka wada danqanayno. maxaa yeelay
jaaliyado badan oo nala mide ayaa waddankan ku nool. Indidaa ka mide, Bakistaana ka mide, community waxaa ka mide, Chinese ka mide, waxaa jooga communityyaal badan. Waana aragnay sida ay isugu duuban yihiin iyo horumarka ay ka gaareen waddankan. Hadday noqon lahayd inay ku biiraan xukuumadda waddankan iyo hadday noqon lahayd inay iyagoo wada jira dalkoodii ay ka yimideen wax u qabtaan iyo haddii ay noqon lahayd inay iyaga dhexdooda iscaawiyaanba. walaalayaal taas waxay igu guulaysteen waa iyaga oo midoobay, iyaga oo gacmaha isqabsaday iyo iyaga oo samaystay maamul mid ah. waad ogtihiin innaga waxaan leenahay 250 community aan leenahay oo kala duwan. hadda ka hor saad la socotaan dowladda Ingiriiska ayaa shir u qabatay community Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. waxaa yimid oo halkaa isugu yimid ilaa iyo 80 community oo Soomaaliya isugu timid. waxaa goobjoog ahaa anigu maan joogin maalinkaas, laakiin waxaa joogay Liibaan Saalax oo ka mid ah jaaliyadda UK jaaliyadda London. runtii waxaa la yidhi oo loo soo jeediyey oo dowladdu Ingiriis ku soo jeedisay inay dallad samaystaan midayso keligood oo hal mid ah oo ay ku midaysan yihiin. waxaa ka dhacday meeshii in qof walba intuu istaagay oo uu aniga qabiil hebel aan ahay, qabiilkaas kalena ima matalo, mana ima matali karo. waa nasiib darro, waa nasiib darro. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. maanta waxaan aad iyo aad u qiyaasayaa inaan sidaas ka bislaannay markaan ogaanay dhibaatada waddanka nagu haysato, markaan ogaanay carruurteenna xabsiga ku jirto. anigu waxaan deganahay meel la yidhahdo Feltham oo ka mid ah magaalada London. waa meesha uu ku yaallo xabsiga ugu weyn ee lagu xiro dhallinyarada. dhallinyarada ugu badan ee ku jirta waa dhallinyarada Soomaaliyeed. 80% dhallinyarada xabsigaas ku jirta waa Soomaali. dhibaatooyinka ay u galeenna waxaa laga yaabaa inay yihiin waxyaabo yaryar oo wax laga qaban kara haddii la leeyahay community midaysan oo u doodo. laakiin nasiib darro ma aysan helin community midaysan oo u doodo. waxaa laga yaabaa asagoo wiilku la socdo wiilal kale oo dhibaato samaynayay oosan asaga dembi shaqo ku lahayn in la xiro. taasna waxaa ka soo saari karo inuu helo community u doodo oo yiraahdo canugaani dembi male, dhibaatana ma geysan, qaladkaana kuwan kala galay ee xira ee asaga soo qabta. waxaa laga yaabaa haddii canug Soomaaliya dhibaato geysto oo kuwa kale cadaan oo ay la socdaan in kuwa cadaanka ah aanan la xirin ee kii Soomaaliga kaliya la xiro. taas marka waa wada ognahay waa community midaysan oo aanan lahayn. waxa kale runtii muhiim ah oo in la xuso u baahan waddankan waa waddan dimuqraadi aan joogno maanta. waa waddan la isu soo doorto. cidinaga male inaan xukuumadda waddanka ka mid noqono, cidinaga male inaan baarlamaanka ka mid noqono, cidinaga male inaan ra'iisul wasaare ka noqono. laakiin waxay ku xiran tahay midnaanteenna iyo isku duubnideena ku xiran tahay. waad ogtihiin ninka baarlamaanka galaay wuxuu mar kasta u doodaa community-ga uu ka soo jeedo ayuu halkaas wakiil uga yahay. wax dhibaataa, wax xumaana oo loo geysan karaa ma jiro. welibana waddankooda wixii ay u qabanayaan waa ugu doodayaa, waana ku taageerayaa, waana u garab taagayaa. innagu waddanka UK waxaa runtii qiyaas ahaan lahayaa inay hadda ku nool yihiin 500 oo kun oo Soomaali ah. waad ogtihiin 500 oo kun oo Soomaaliya ma yaro. London kaliya ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay ku nooshahay 250 kun. ka warrama marka, imagine intaas hadday isku duubanto oo hal cod yeelato oo hal qof doorato, ka warrama waddankan wax weyn baanu ku yeelan karnaa. taas waa midda koowaad oo kalifayso walaalayaal inaan isku duubanno oon yeelano community midaysan oo on kulligeen wada leenahay inagoo gacmaha iska haysano oo aanan kala harin. waa qodobka koowaad. waana midda aan isugu nimid maanta oo bilowgeedii aan hayno oona ka shaqaynayn. midda labaad walaalayaal waan ogtihiin waan soo qaxnay, halkaanaanu nimid. waxaan ka soo cararnay qabiilka hadda la sheegayay ayaan ka soo cararnay.
dil aan ka soo cararnay dhibaato annagu aan isdhibaataynaan ka soo cararnay waxaan isku geysanaan ka soo cararnay waddankeennii weli isma raacsana inkastoo sidii hore hadda ay ka fiican tahay xaajadu oo dowlad rasmiya noo jirto haddana ma dhammaystirna ilmaheenni weli way dhimanayaan dadkeenni weli waa isdilayaan ummaddeenni weli waa la qarxinayaa weli dhibaatadii way jirtaa laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan haysanaa maanta meel aan ku hiranno oo aasaasaan haysanaa oo ah dowladdeenna maanta uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud prime ministerkana uu ka yahay saacid ra-iisul baarlamaankana uu ka yahay jawaari runtii innaga ayay nagu xiran tahay soomaali meel walbay joogtaba hadday gudaha joogto iyo hadday dibadda joogtaba inay shaqayso iyo inay shaqayn wayso kuma xirna saddexda nimoon magacooda sheegay laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaanay ku xiran tahay sida ay u arkaan dowladdaas iyo sida ay ula shaqeeyaan iyo sida ay u garab istaagaan walaalayaal marka waad ogtihiin dadkii soomaaliyeed intii wax garanaysay hadda inta generaal ama inta corneyl ama inta sargaal ee loo yeeray ee halkaa ka hadashay waad arkayseen inta professor ama dictor ama dhakhtar halkaa fadhiyana waa maa cadadnaa walaa xisaaban sidaa darteed marka dadkii soomaaliyeed ee wax qaban lahaa ee dalkooda iyo dadkooda wax u qaban lahaa bannaankay usoo baxeen waxaa loo baahan yahay marka in innagoo inta joogno horta koow marka hore aan isku duubanno soomaalidu waxay tirahdaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan haddii nin dhakhtarow inta ka baxo oo soomaaliya keligiis tago waxba ma qaban karo haddii laba nin ay tagto waxba ma qaban karno laakiin haddaan isku duubanno waxaan diri karnaa halkii sano waxaan diri karnaa 200 oo qof oo aqoon leh oo aqoon ku filan leh oo wax muuqda ka soo qaban karto dalka Soomaaliya oo noola soo noqon karto ayaan diri karnaa halkan ka diri karnaa aan Soomaaliya u diri karnaa sidaa darteed marka taasina waxay kaliftay in aan isku duubanno oon samaysano community xoog leh oo midaysan waxa kaloo iyadana loogu baahan yahay community midaysan walaalayaal waad ogtihiin adduunku maanta wuxuu u socdaa waa dhaqaale adduunka maanta waxa la isku gumaysanayaa waa dhaqaale maraykanka waxa la yiraahdaa waa dawladda adduunka ugu xoog badanna waxa ay ugu xoog badan tahay wax kale ma ahana waa dhaqaale waad ogtihiin waddankeenana maanta meesha uu marayo iyo dhaqaale xumadiisu halka ay marayso 500 oo kun oo qof haddaan halkan ku joogno innaga oo qofkiiba hal baan oo bixiyo walaalayaal hal baan qofkiiba oo bixiyo waa 500 oo kun lacag dhan ayaan soo xareyn karnaa hal bil ku soo xareyn karnaa waa bishii hadduu qofkii hal baan bixiyo hal baan ma joogto mooyo saxadaas biyaha hal baan joogto marka haddii aan hal baan bixino waxaan ku soo xareyn karnaa lacag dhan 500 oo kun 500 oo kun markaan haysano dowladda Soomaaliya inaga xukunno inaga maamulno inaga wax alla wixii qalad ah oo jira saxi karno inaga ciidanka qaranka Soomaaliyeed hogaamin karno uma baahnin ciidan kale waa ka maarmi karnaa oo shisheeye inay waddanka Soomaaliya inta yimaadaan ayna waardiyeeyaan waa ka maarmi karnaa haddaan isku duubanno oo intaas oo dhaqaalaan aan helno waxa kaloon walaalayaal sidaan idin sheegay bajaaliyada ugu badan waxay ku nooshahay UK waxa kaloon tusaale u noqon karnaa jaaliyadaha ku nool adduunka jaaliyada ku nool Mareykanka jaaliyada ku nool Yurub oo dhan ku nool jaaliyadaha Carabta ku nool kuwa Afrika ku noolaan waxaan u noqon karnaa tusaale fiican London waa lagu daysadaa ogaada London iyo UK waa lagu daysadaa UK waa lagu daysadaa waxa loogu daysadaa waa meesha Soomaalida ugu badan oo ay ku soo qaxeen waa meesha ay joogaan saraakiishii Soomaaliyeed inta ugu badan waa meesha ay joogaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed inta ugu badan waa meesha ay joogaan dadka wadaniyiinta ah ee runtii markasta markay TV ka hadlayaan ooynayo ee ilmeynayo waa meesha ay joogaan ogaada
waa meel ku dayasho mudan marka cid kastoo tallaabada ay qaado UK waxaan hubaa maalinta ku xigto inay tallaabadii mid lamid ay qaadayso oo ay ku daysanayso UK marka iyadaa waxaa laga rabaa in ay tusaale u noqoto dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dacallada waad ogtihiin maalin dhaweeto markii dilka loo geystay wiilka Soomaaliyeed ee darxumada loo dilay ee lagu dilay South Africa ee dhagaxa lagu dilay ee jidka lagu dilay Cabdinaasir Mideeye loo bixiyay ciddii ugu horeysay ee u istaagto ee mudaharaad qabato waxay ahayd jaaliyadda UK tallaabadii ugu horeysay ciddii qaado ee tagto safaaradda South Africa ee ku taalo magaalada London waxay ahayd jaaliyadda UK waxaanu la kulannay oo la fariisanay high commissionerka wadankan UK u joogo South Africa oo ninka ugu sareeya ah high commissioner ay leeyihiin iyagu ma laha safiir ma laha waayo waxay ka tirsan yihiin Commonwealth ka tirsan yihiin sidaa darteed waxay leeyihiin high commissioner oo ku taalo magaalada London daarweynay ku leeyihiin si gooniya ayaan runtii loo qadariyaa markay noqoto wadanka UK waanu la fariisanay su'aashii ugu horeysan weydiinay waxay ahayd waxaan niri dhibaatada aad geysateen waxa nooga xanuun badan aamusnaashaha aad ka aamusantihiin ilaa hadda wixii dhacay oo aynaad ka hadlina runtii hadalkaas wuu ka danqaday ninkii high commissionerka wuu ooyey wuu ilmeeyey runtii wuxuu yidhi fadhiga aan idin hor fadhiyo waxay igu tooyiri embarrassment ceeb ay igu tooyiri inaan hor fadhiyo iyadoo waxaas wadankayga laga sameeyey dad Soomaaliyaana lagu sameeyey 24 saac gudahoodna waa ka jawaabaynaa uu yiri madaxweynahan hadda la xiriiraya 24 saac gudaheedna waxaan ka soo saaraynaa war saxaafadeed madaxweynaha isla markiiba ka jawaabay maalintii ku xigtay isagana maalintii ku xigtay ayuu war saxaafadeed akhriyay sida aragteenba markii mudaharaadka aan ku hor sameeynay safaaradda ee South Africa ee high commissioner South Africa ee London ku taal inta kadib walaalayaal waxaan maanta u hambaliyaynaynaa gudoomiyaha guurtida Manchester ee la doortay Sharif Sen waxaanu leenahay Sharif Maxamed Zenow soo dhawow ku soo dhawow golaha Sharif Umar Zenow ku soo dhawow golaha guurtida runtii waxaana ku hambaliyeyn doona marka uu microphone qabsado gudoomiyaha golaha guurtida UK Sharif Ahmed Dey oo isagana dhinaca xaga fadhiyo marka ii fariiso isaga marka walaalayaal waxaan rabaa kaliya inaan ku soo gabagabayno shirka Bristol ka dhici doona insha Allah 30 bisha shirka wuxuu isugu jiraa laba qaybood horta shirka 1 Luulyo iyo 26 June oo ugu ballaaran wuxuu ka dhici doonaa saad la socotaanba magaalada Muqdisho waxa loo saaray guddi gooniye oo dawladdu ay u magacaawday oo ka shaqeyn doono habeenka annagu aan xafladda sameynayno 1 Luulyo ee ka dhici doonta magaalada Bristol ayuu asaguna wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho nasiib wanaagna guddigii loo sameeyay oo shirkaas loo magacaabay oo uu magacaabay dawladdu ay u magacaawday iyo inagu waa isla shaqeynaa waana isku xiran yihiin labada xafladood xafladda ka dhici doonta halkii taxa ka dhici doonta sidaa darteed qaybta kale qayb waa qaybta 1 Luulyo qaybna waa qaybtii iscafiska odayaashu markii ay u tageen golaha guurtida ay la kulmeen madaxweynaha hadda dhow markii uu yimid maaha waqtigii hore magaalada Bristol markii shirka lagu qaban jiray xafladda ay la kulmeen ay codsadeen in ay qabtaan iscafiska ummadda Soomaaliyeed maalin la yiraahdo oo dadka Soomaaliyeed la isugu yeero oo iscafiyaan halkaasna ay ka bilaabato dib u heshiisiin madaxweynahana runtii markii uu hadalka qabsaday uu ka hadlayay magaalada Bristol Birmingham raalaha uu ka hadlayay hadaladiisii sidaad la socotaanba ka mid bay ahayd oo wuxuu yiri maalinta waa rabnay inaan sameeyno waa ku tala jirnay laakiin waxa nooga hormartay UK qaasatan waxa nooga hormaray reer Bristol waana ku taageereen runtii Birmingham iyo Bristol iyo odayaashii fikirkay soo jeediyeen sidaa darteed walaalayaal
wax badan baa laga soo shaqaynaya xafladdan maalintii arrintaas oo ku dhawaaqay madaxweynaha ilaa maalinta maanta shirarka xafladdaas ku saabsan waxay ka dhacayeen magaalada Bristol waxaana gogasha dhigayay mar kastaba reer Bristol raalli ahaadaya reer Bristol waxay raalli ahaada reer Birmingham waxaa intaa gogasha dhigayay oo qaban qaabinayay maalin kasta dadka sugu yeerayay reer Bristol odayaasha guurtida Bristol inta kale ee jirtaana way ka soo qayb galayeen waxa ka maqnaa qaybaha hadda maanta ku soo biiray golaha guurtida iyo jaaliyadda oo halkan fadhiyo way ka maqnaayeen inta ugu horeyso waxa weeye waa wacyigelin waxa la akhrin doonaa muxaadaro waxa ka soo qayb gali doono culamaa diin waaweyn oo ku nool wadanka UK oo hadda aan idinka tilmaami karo Sheekh Usuli ayaa ka soo qayb gali doona insha Allah oo muxaadaro ka soo jeedin doona wacyigelin halkaas ilaa muddo anigu waxaan ka mid ahaa calankan shanta geesood leh ee halkan ku arkaysaan waxaan ahaa raggii waxaan ka mid ahaa dadkii celebrationka Bolton ka sameeyay ayaan ka mid ahay waxaa laga yaabaa intiina oo dhamme inaa ama wadankii joogteen ama meelo kale ku maqleen laakiin anigu ayaantii la taagay halkana ka sameeyay demonstrationkii iyo xafladii magaalada Bolton la yiraahdo dhexdeeda ayaan ka sameeyay taasina waa taa waxaan idinka warramaya aniga oo yar oo 15 jir baan wadanka soo galay waxaan ugu imi niman badan oo Soomaaliya oo magaalo Steve la yiraahdo Sheffield agteeda jooga nin baa i kaxeeyay wuxuu yiri waxaan ku geynayaa shaqo ninkii factory-ga lahaa ayuu yiri inaan ka yar shaqo iisi wuxuu yiri muxuu yaqaan wax badan ma yaqaan oo dawaa ina yar buu wuxuu yiri gaalkii wuxuu yiri waxaad ku tidhaa inaan ka haamaha qaado dubaha qaado biraha orojo jabi waxaan ku kii Soomaaliyeed baa ii sheegay wuxuu yiri biraha jabi waxaan ku yiri war anigu nin qabiiliyo meel ka yimaado biraha jabin maayo waxaan doonayaa madaxnimo Soomaaligii baa u sheegay ninkii cadda wuxuu yiri de inaan ka yari wuxuu yiri anigu nin qabiiliyo meel ka yimi baan ahaado de biraha jabin maayo in dad xukumaa baan doonay markaasuu gaalkii yiri xaguu ka yimi wuxuu yiri Soomaaliya hadda waa ninkii maanijaha meesha markaasuu yiri Soomaaliya ma Jamaica horta aniga nafahan taasaa iigu dambeysay qolo aan sheegto mar haddii Soomaaliyaba haddii ay ka fil roonaatay oo ka magac roonaatay meel islaafka lagu ururiyo reer hebel baan iyo qabiili baan maxay ii tari taasina waa mid Soomaad imanka anigu dadkan u turjubaana af Ingiriiska iyo af Soomaaligan isku turjubaana Soomaalidu sidaad isu leedahay qofkan adduunyada Ilaahay oo dhan baa rag iyo dumarba qofka Soomaaliga kaaga sheekaynaya markaas aad is oranaysaa waa professor talo xaq wax ku soo bartay markaad halka marayso ku oranaya qolamaata way igu dhacday waliba dumarka u badan waxa yidhaahaa waxaan ku idhahaa waxaan ahay Soomaali dee Soomaali garanayaad ka sii tahay dee Soomaali waxaan ku idhahaa Soomaali markaasay waxay moodaan inaan waalahay oo maskaxda wax iga jiro marka walaalayaal waxaan idin sheegaya qabiil waa ka halka ina dhigay qabiil waa ka halka ina dhigay way soo wada egnahay afbaynu ku wada hadalnaa isku diin baynu nahay isku culture baynu nahay war waxa qabiil la yiraahdo waxa sheegta waxeenu ma aha tribe lama yiraahdo af Ingiriiska waxa la yiraahdo clan ayaa la yiraahdaa war dad isku dhalay dad isku mid ah oo meel ka wada yimi oo isku diina oo isku arag ayaynu nahay war waxaan ina wada waa maxay waxaan garan lahay oo aan weydiinayaa Cabdi Cumar barigii hore ee 1940yadii wixii ka soo horeeyay markii dagaalku ka dhacay wadankan gumeystayno yimi wuu ina googooyay waa su'aalan weydiinayaa Cabdi Cumar wuu ina googooyay Somaliland
puntland muqdisholand italian somaliland france somaliland muqdisho italian land NFD maxaa la oran jiray wadanka Soomaalida marka intaan dadkaasi inoo iman maxaa la oran jiray sigistigi gumaystihii waynu ka takhalusno waynu eerinay Soomaad fahmin waxaynu dib ugu noqonnay markaynu erinay ninkii halkaynu ku noqon lahayn wixii dagaalka hortiisii waxaynu ahaan jiray inaynu noqonno ayaan imanka waxaynu dib ugu noqonnay wixii gumaystuhu inoo sameeyey waay maxay ku dhacday Somaliland Puntland Muqdisholand maxay ku dhacday waa arinta aan doonaya waxa xukuma wadankeena waa ogtihiino dawlado badan baa soo maray aniga ka Hargeysa ka yimi ka Burco ka yimi ka Muqdisho ka yimi ka yimi ka Baraawo ka yimi iima kala duwana Soomaali war waxa wanaagsan waxa wadankeena xukuma aan ogahay waraaqahan akhrista wax walba waan eg sorry xaqa qolada nimankan aan doonaya inaan ka dadajiye waxa weeye maxay ku dhacday wixii waa soo gaabin wixii gumaystuhu inoo sameeyay inaynu maanta dib ugu noqonno adaan ku weydiinaya Cabdi Cumarow iiga jawaab intaan mikrofoonka dhigin iiga jawaabdi Soomaaliland marka walaalayaalow waxaanu criticize garaynaa dadka xagga jooga war communication-ka inaga haysana lacagta inaga haysana raashinka inaga haysana iyagu waxba ma hayaan fartaynu ku fiqnaa waxaan ilaa iyaga wadankii qaribay iyaga dilay iyaga caynkan yiri inagu maxaynu nahay 453 oo community wax lagu sheego ayaynu ku kala qaybsanahay war hadaynu doonayna sidaynu ahaan jiray dignity Soomaalida oo aynu ka baxano in ninkaynu ku oran jiray baleeg waxaynu ku oran jiray dadka madmadow aan Soomaalida ahayn waxaynu ku nidhahnaa ilmo dhagax ina dhagax baa xukuma wadankaagii ina dhagax nin la yiraahdo xukuma wadankaagii Hargeysa dawladda ka jirta waxba kama jiraan Muqdisho dawladda ka jirta waxba kama jiraan Boosaaso dawladda ka jirta waxaas oo waa nonsense war haddii ay qaban waayaan oo wadanka Soomaalida dadka ku nool waxba ka qaban waayaan inaga inoo taalaseen wadankeena wax uga qaban maxaa ka qaban karnaa Soomaalida Muqdisho iyo ta Somaliland iyo ta Puntland iyo ta Kismaayo maxaa ka qaban karnaa waxba kama qaban karno horta inagu dhexdeena waxaan iska qabanno ilaahayna ka yaabno han ururno mid quraan ahaano hadday gabar ooydo hal ooyno hadduu wiil calaacalo halla calaacalo wiilkan muxuu ku calaacalaya ayaan loo odhanin waa shalay waa kii calaacalayaan loo odhanin hadday gabar ooydo maxay ku eeysaan yaan loo odhanin ubadkeedii baa daranyaysay yaan loo odhanin hadday daranyaysay daynaga daranya tiri oo intana gaali qaadanaya adigu soo qaado ilmahay oo community-ga wahayo waxaan leeyahay anigu waar talo iyo tawfiiq wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo mudakarnimo iyo odaynimo iyo walaaltinimo iyo wanaag iyo magac iyo manfac iyo talo iyo tusaale isku nimaadno hadda weyna ahayn waarni walba godkaad ku jirteed kaamsi boodka ku qaadanaysid saddexda lambar garaacaysa garaac dabeedna arkaa telefoonka Soomaaliya kala hadal oo reehbel baan haydhe Soomaali ha noolaato hadda xagga sheega ka socoto hadda isku baan iman marka bismillaahir rahmaanir rahiim aniga kulli gudoomiyaha maarta muxuu ahaa Zayn gudoomiyaha magister reer magister waa ka tilmaaman yihiin UK marka runta laga hadlaayo idaacadaha naqato ama Soomaali meel kasta laga ogyahay waa dadaan qabiil ku shaqayn waa dadaan ehel ku shaqayn waa dad walaalaha maarta maxaa subxaanahu wa ta'aala maarta isku xiran isboortigooda aqyaartooda odayadooda isku xiran waay marka insha Allah waxaan rajeynayaa sidii hadda ku wadeen haddana maanta inay hoggaan uga naqdaan guurtada socoto in ay naftooda hoggaan qayb ka naqdaan mudane ali marbo in baa salaamantiin waxa horta ilaahay baa mahad leh waxaa kaloo nagu xijisiinay dadkii nagu martiqaaday magaalada meesha nagu soo dhaweeyay reer Manchester waa mahadsantiin ayaan leeyahay
kule aanu ku dheeraan maayo laakiin waxaa fiican dadku marka saas isugu yimaadaan aynu ka hadalno xumaanteenna iyo dhibaatadeenna waxaa also iyaduna mudan in laga sheekeeyo waxyaalaha farxadda inoo mudan iyo horumarkeenna marka anigoo taa kaanba qaadaya waxaan dhowaan tegey waddankeennii ilaahay noo barakeeyo magaaladeeni muqdisho runtii markii aan tegeyna waxaan dareemay in maaragtay meeshaan meel anaga khiyaamaynayo ay tahay oo warkaan dibadda ka maqlayno inta badan qaraxa iyo dagaalkii waxaas inaanu saas usii dheerayn dadku waa nabad way fiican yihiin aragtidoodu way wanaagsan tahay maalin ka dambaysana way sii xoogaysanaysaa marka waxaan jeclaan lahaa horta inaan ugu gugaabiyo inaan waddankeennii hooyo booqanno waayo nafti biniaadamku marun bay baxdaa meeshaad ku dhimanaysana ilaahay baa qadaray xaaladuna sida laga deerinaya maaha talabaad waxaan jeclaa inaan ku dardaaran geliyo maanta ayaa maalinta dowlad noogu dhowdahay wixii tembrariga ahaa ama kumeelgaarka waan ka baxnay dowlad rasmiya oo 4 sano loo codeeyey ayaa joogta meesha marka dowladda waxaan doonaynaa ula dhaqantaan sidii ubax soo baxay geed yar oo soo baxaya waayo baabuurka aragteen maanta computeriska ah meeshadska u taqaanaan wuxuu ka bilaabmay isagoo bishkileta baaskiil ayuu ahaa marka dowladnimadeena haddaan hore u luminay imika ayay noo soo noolaanaysaa waxaana ku xidhanta dowladdu waa dadkeeda dowlad inta la iska yidhaahdo qof la iskama doorto meelaha oo magac iska jira maaha waa dadka dhulkan waxaan idiin sheegayaa soomaali badan waxay ku taantaa dhulkayga hooyo isna dhulka hooyo is waa dadkayga aniga tumii dadka ayaa qiima dhulka ilaahay baa iskale ilaahay baa nagu beeray koonahaas waana koonaha ugu barwaaqaysan runtii soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa waddamada ugu taajirsan adduunka xeebta ugu dheer baan leenahay africa south africa ayaa naga dheeraan jirtay laakiin way kala gooday hadda markii la isku odhan jiray namibia ahayd marka waxa weeyaan haddaba badda ugu fiican baan leenahay waxaa laynagu haystaa waa nimcadeennii haddaad maalin tagto aad ilaa jaanis kuu siiyo xeebtaa yara liida baddaa buluga aad daawatid iyo hawadaa fiican markaasaad ogaanaysa qiimaha iyo ficnaanta waddankeenu leeyahay kulligeen maskaxdan ka dawoobaynaa marka waxaan jeclaan lahaa in dowladdeenna aan dulqaadanno inagu isu samirno because dulqaad ayaa wax lagu gaaraa haddaan bini aadam ku samir lahayn waxyaalo badan ay ka xumaada ka halaaba marka waxaan jeclaan lahaa dowladdeena in la taageero waayo dowladdu waa dadkeeda haddayna inagu dhisin diasporahana inaga ugu xoog weyn dadka UK jaalada UK aad bay ugu xoog badan tahay diaspora waxaa fiican marka inaan awooddeena ku isticmaalno mid khayr ku jiro oo wanaagsan waxaan jeclahay sida walaalkii cabdi cumar kaga dhawaajiyey in loo gurmado dowladda waayo lahaanshaha ciidankaaga iyo booliiskaaga waxay ku kasbaysaa inay danahaaga ay ka shaqeeyaan haddii qof kale kuu masruufayo dana dad kale ayay ka shaqaynayaan marka waxaan jeclaan lahaa oldo aynaan maartay islahayn genigaas waxbu tarayaa waxaan idinku bishaaraynaa in wax weyn tarayo marka waxaa muhiim ah in aynu u gurmano waddankeennii ishabayno iskula durnaano sababtoo ah dhibaatadayna haysata laba meelood bay leedahay midna waa meel hoose oo yar tahay midna waa mid sare waayo waxaan idiin sheegaya dhulkeenna waa laynagu haystaa isku duubnaan keliya ayaan kaga bixi karnaa kusoo ceshan karnaa haweenkeenna iyo ubadkeenna cawradooda ku asturi karnaa marka dad isjecelo walaala aan noqono waana mahadsantihiin waa mahadsan yahay walaalkay markaan waxaan u yeerayaa guddoomiye ku-xigeenka guurtada xaaji macow welcome soomaalidu waxa weeye markay wax sheegayso taariikhda inay dib ugu noqoto calankan xidigta leh ee halkan ka taagan maalintii la taagayey waxa loogu hortaagay magaalada hargeysa la yidhaah anugu waxaan ahaa ardaydii ingiriisku soo kaxeeyey ee markuu korneylku calanka daadejinaya calanka ingiriiska uu gosha gashaday ee calanka soomaaliyeed la saarayey calanka waraxasi calankaasi maalintaa qiimo fara badan buu lahaa waanad aragtee inuu qiimo fara badan inuu leeyahay maxaad ku garanaysa inuu leeyahay bal marka calamada adduunkoo dhan la sawiro ee lagu keeno sawir bal eega siduu eegyahay isagaa kelidii ka dhex muuqda quruxdiisa sharaftiisa midnimadiisa siduu yahay waa kow waxaan haddana ahaa dadkii ugu horreeyey ee taga xamar intay waqooyi ka tagaan xamar taga magaalada xamar la yidhaah aqalka baarlamaanka maalintii la saarayey mitirka waan joogay xamar baan joogay markaasi ee la dhisi doono
balaanka la sameynayay ka cusub kii casaa maaha waa ka kale